ولما علم مالكو قيليس أيان أنكو جماعان جولد باكو قادنا السلام عليكم وعليكم السلام بدبارش هنا لهلنا واحنا مسلم مركا وان دغيست هاي شيخو هنا لهلنا حبها نو شيغن ها إله حقيسا نوغو يدهسو أنك وحبا نما سين بيري هذا الكا كورما ها يو وحسيه reer galbeedku ilaahay wax siiyay dadka cad cad xaba annaka ilaahay nama siin buu sheekh dadkaas wax la siiyay markaas aan ku leeyahay ma waxaad raadinaysaa maxkamad marka ilaahay soo saarto soo saamahad ilaahay buu rabaa inuu dacweeyo Soomaa kuwii kala marka ilaa dadku isku mid ma isku ma jiraan inuu ba khayrka u soo go'day waraa waxa ku adu naga aamus annaka la hadla annaka dhageysanina khayrka waxa looga bilaabay نعمت إلهي بن آدم كان جركوغا وكو أبوري وفي أنفسكم أفلا تبصرون أدبا مركا الله حال ديرادي أرقي يا نسي الله ما قالك يا نسي الله هلات كان إلهي كورك يا بلاك إشان أوكلية هدين لقايد هذا وحا وضن كان لعقت هلو نبا كلي قال له سينا إله لقا سارو ما يلي لا وضع يندونا وحا أدوك يا لودن ما قالك كذلك إيشو هل كم مقالك أوجل مقالك هرتيجو سانكو باسك أوجل مقالك مقالك هرو عنتك اللي يوقفك عنا يا كسوقات هل كابلا دق عنتدي إيش أمرك هو الرسالة إيه جيسا إيشو ما حيش إيه جيسا أدي عنتدا دقصدول سعودك ورا ما دقصدول يلا أما برا دول فردو إيش هالشيء جيسا كعنتو مش جيسو إيش هالشيء جيسا روح حكى قاعدة دي وافع عنتدا نقعد طيب عنتدي مركو أركت إيشي وفي عنتهاي قعنتو قلية كسوقات قعنتو waxay sheegaysaa cuntadani ma kulayl ba mise waa dirrimaad mise waa qabow gacanta sheegaysa haddii cuntadani afka ay gubi lahayd gubayso gacanta markiiba sheegaysa wuxuu leeyahay qofku waa kulayl cuntadu yar qaboojiya cuntadii waa normal kulaylna maaha qabowna maaha waa meel dhaxaad gacantii way soo qaaday halka marka cuntadu ay marayso yaa sheegay haddana saanku wuxuu sheegayaa cuntadani urti buu sheegayaa may udgoon tahay mise way bedelantay oo carfigeygii uu ka tagay meesha hadday uraysa ka waran afka loo dhiibaya marka afka waxa qaadanaya shaqadiisii carabku wuxuu dhadhaminayaa ma qaraar ba ma macaan ba ma dhanaan ba bal xubin kasto jirka bini aadamka qiimaha ila leedahay yaa ku siiyay gudaha halka cuntada markay gaadho hadana warshad kale halka ku rakiban oo ilaahay uu ku rakibay oo waxa halka mariso dhan kala saaraysa waxa ajiiba magnad ba ilaahay carabkeena uu ka dhigay magnad abuu qabta tin hal tin oo timaa ma gaadha lagu leeyahay caloosha bini aadamka carabka soo tuuro markiiba carabka waxa uu sheegaya biyo intee lag ba carabka ku jira جماعة بري وحي أركانين عادة 5 لتر لا يوسيتا ماركو ير جوجب أو كبدا ماركو ير جوجب أو كبدا 5 لتر ولا ويدي محاكو هلا سوى حجران عرب كاي قلل بيدي عرب كاي مادتي قن بيها سميني سن مال بيدي حدا 5 لتر بيها قعنت ku sidani waayo unguriga engege oo dhimanaya biydi inagu nicmada ma qadarin maalina نعمة مقالك أيا يقانا قفك مقالك كم مقايا هيبا يقانا نعمة أرق أيا يقانا قفك أرق كم مقايا هيبا يقانا نعمة هذلك أيا يقانا قفك هذلك كم مقايا هيبا يقانا نعمة هردد أيا يقانا قفك هبينك أنا جيفان با يقانا نعمة أوبتك أيا يقانا نكبلا أوبتك يقانا هذا ويتو سوشيال ميديا waxay soo dhigeen maqtac nag Faransiis oo da'deeda lagu qiyaasay 9 ajiib waxay tiri yani hadal nin sheekhaana dhageysiyay nin naag fadhiyay oo sheekhaha uu lilmeel musiidaay hadalkeegi markuu dhageystay luqa carabiga laga turjumayaa waxay tiri waxaan isku daynay inaan lacag sameeyno lacag waa sameeyna lacagtii waxaan ku dhisanay tiri aqalku adduunyada ugu qiimo badnaa ugu qurux badnaa ma ku dhisanay material alaabta aqalada dhex taalana waxayno aan ka dhignay alaabta ka qiimo badnayd ee ka qaalisnayd ayaan dhex dhignay tiri
لكن نولشي أسرد إسهيستي أسرد إسهيستا قلدا كمان ولا بيتري مجتمع إسهيستا وضي إسلام عرورتي يوحي دلان وسقط ضوبا ما هيستان ما هيسان يتري alaabtii ugu qaalisanayn aqalada waan dhex dhiganay laakiin raaxadii qalbiga ma haysanay tiri daawadii adduunyada ugu qiimo badnayna waan samaysanay dhakhtaradii adduunyada ugu qaalisanaay dhaqaatiirtii adduunyada ugu qiimo ugu tayada fiicnayna waan la soo baxnay caafimaadna ma haynay tiri naartii jaxiima hadday adduunyada jirtana bay tiri annaga ku dhex nool samaysanoo gacanta ku lacagta naarta ku samaysanay tiri فلا تعجبك أموالهم هذا الكيجي آيات القرآن قبل سكوك من يقدر هذه النعم لأن أسلوب عين كاسا مركا رقي مجلس كجات كقيلي اللي قولها الله يو نكي وانو فرصدا نكي مدحو صدا والروحة بركان هذا الكوردا مينين اسكي تغني ايو نغا دبا الله شيخو هذا الكهدر انكو هلي شيطان بايغا كينا يسو دعيه بودي شيطان با نحن ما خير با كجرا فطرتي ايمانك قلبيgiisa ku jirta markuu macsiyo ku dhaco qofka muuminka marka dambe uu ka calaalaya limaada lana fitrada islaamnimada qalbigiisa ku jirta qofkan walaalaheyn jazaahumullahu khayr waxay cunwaan uga dhigaan kalmadan usrada wanaagsan suurad quraanka ilaahay ku taala hadaad kala furtid hal mawduuc kaliya kuma koobna inay ka hadasho bal mawaadiic fara badan baa suurad walba ilaahay kaga hadlaa suurad kaliya ayaad arkaysaa marna waxay bayaaminaysaa ilaahay cadamadiisa mar waxay ka hadlaysaa ilaahay nicamtiisa mar waxay ka hadlaysaa aakhirada mar waxay ka hadlaysaa adduunyada mar waxay ka hadlaysaa xuquuqullah xaqa ilaahay nagu leeyahay mar waxay ka hadlaysaa xaqa addoomuhu ay nagu leeyihiin mar waxay ka hadlaysaa jannada wamaa fiiha min annaciim mar waxay ka hadlaysaa cadaabka wamaa fiihi min alaliim walciyaadu billaah marka usradda wanaagsan waxaa ka horeeya fardi wanaagsan deedna usrad wanaagsan deedna mujtamac wanaagsan nolosha bini aadanku qaabkaasay u bilaabantaa fardi wanaagsan inuu qof walba horta isagu wanaagsanaado isagu hadduu wanaagsan yahay asagaa markuu qofku sameynaya mujtamac wanaagsan usradda wanaagsan isagaa sameynaya usradda wanaagsan nolosha bini aadanka waxay u tahay saldhigba u tahay sees waxay u tahay isku xidh in dadku isku xidhmaan waxa keenaya waa usrad wanaagsan usrad wanaagsan waxaa ka horeeya fardi wanaagsan qofku inuu keligii wanaagsanaado adu keligaa maxaad ku wanaagsanaan usraddaaduna maxay ku wanaagsanaan mujtamacaad ku dhex nooshayna muxuu ku wanaagsanaan inteennaasi waxaan ku wada wanaagsanaanaynaa waa haddaan noqono addoommo ilaahay oo wanaagsan daadooni noloshan adduunyadu keli ahaanta iyo usradda aad ku dhex nooshahay iyo mujtamacaad ku dhex nooshahay intuba inay hagaagaan oo dad wanaagsan oo adduunyo wanaagsan haysta oo nolol wanaagsan ku nool oo nabad wanaagsan haysta haddaan doonay inaad noqotid waxaad ugu horraysay la rabaa inaad noqoto addoon ilaahay oo wanaagsan cabdii kullii kamaa uriid akuunu laka kamaa turiid baa ilaahay yidhi xadiis alqudsi addoonkaygiyow sidaan anigu aan kaa raba ii yeel sidaad adigu iga rabtana anaa kuu yeelaye adigu sida rabbigaa uu kaa raba yeel sida naftaad u rabta ha yeelin
dadku siday kaa rabaana ha yeelin waxaad eegtaa rabbigaa wuxuu raba eeg ibraahim alkhaliil calayhi salaam nebi ibraahim ayaa waxaa u yimid jibriil calayhi salaam malakul jibriil baa u yimid oo ku yidhi adduunka waxaan u imide maanta allaha salaamka ayaan salaan ka sidaa bishaarana waa sidaa oo addoon waxaan u sidaa addoon ilaahay uu gaadhsiiye maqaam addoommihii ka horreeyey aysan hore u gaadhin oo la gaadhsiiye maqaam la yidhaahdo khaliilka ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay saaxiibkiisii markaasuu nebi ibraahim calayhi salaam jibriil buu ku yidhi addoonkaas haddaad ii sheegi lahayd aniguna waan u adeegi lahaa buhi waan u khidmayn lahaa markaasuu yidhi yaa ibraahim addoonka maqaamkaa la gaadhsiiyey waa adiga maqaam waxaa ilaahay ku gaadhsiiyo ilaahay kuu gartay inaad u qalanto waatakhada allaahu ibraahiima khaliila inaad noqoto ilaahay khaliilkiisii khaliil saaxiibka ayay ka sii xeel dheer tahay khaliilkana waxaa ka sii xeel dheer xabiibka lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam xabiiburaxmaan buu ahaa ibraahimna wuxuu ahaa khaliiluraxmaan marka jibriil calayhi salaam baa ibraahim ku celiyey su'aal labaadoo wuxuu ku yidhi yaa ibraahim maqaamka maxaad ku gaadhay bal ii sheeg kulle acmaal maqaamka ilaahay baa ku gaadhsiiyey laakiin asbaab maqaamkan lagu gaadha ayaa jirtee bal waxaad maqaamka ku gaadhay ii sheeg buu yidhi sifaadka aad isleedahay maqaamka waad ku mutaysatay in lagu gaadhsiiyo darajad khaliilka ilaahay maqaamka bal waxaad ku gaadhay ii sheeg markaasuu ku yidhi 3 khasladood baan u malayn buu ku yidhi 3 khasladood khasladda koobaad waxa weeyaan wuxuu ilaahay aniga ii ballan qaaday kama walwala buu yidhi haddeetool khalaas arsaaqada ilaahay baa ii ballan qaaday arsaaqadu walwal iguma hayso ilaalinta ilaahay baa ii ballan qaaday ilaalintu walwal iguma hayso nabadgelyada ilaahay baa ii ballan qaaday nabadgelyadu walwal iguma hayso nolosha ilaahay baa ii ballan qaaday nolosha walwal iguma hayso waxa ilaahay uu ii ballan qaaduu yidhi shayga aniga igu hallee addoonkaygiyow waa ka walwal beelaa buu yidhi khalaas shayga labaad waxa weeyaan marti iima timaado wuxuu yidhi weligay cunto ma cunin ilaa haddaan cunto cuno marti baan la cuntaya oo marti baan raadsadaa buu ku yidhi martidu iima timaadda anige bal aniga raadsado la doondoona cuntada inaan maaragtaane marti fiican ila cunto nebi ibraahim calayhi salaam 3 malag oo suurad aadamiya leh ayaa marti u soo noqotay baa la yidhi waa saddexdii malagee jibriilna uu ka mid ahaa ee loo diray halaagay qowmu luut 3 malag markay ibraahim u soo galeen suurad aadamiya bay leeyihiin ibraahim calayhi salaam ma dhihin ayaa tihiin halkeed ka timaadeen ma soo cuntayseen ma odhane xerada intuu ku laamay ayuu dibi yar oo dhaylo ah ayuu ka soo saaro markiiba birta ayuu u mariyey dabkana uu saaray innaka maanta marti hadday noo timaado waxaa laga yaabaa inaan ka bilaabno nidhaano ma soo qadayse soo saa maaha hada calaamatulbakhayl calaamatulbukhli weeyaan baa la yidhi martii irridaadaysa soo taagtay inaad ku tidhaahda biyo ma soo cabteen shah may nii keenaa mad soo qadaysay hada calaamatulbukhli weyn inaad bakhayl tahay taasaa u daliila ibraahim calayhi salaam ma odhan xaggeed ka timaadeen ma soo cuntayseen ayaa tihiin ma dhihina wuxuu yidhi isla markiiba uu fadhiisiyo gogol fiican buu u dhigay xeradiina uu ku noqdo dibi yaroo dhaylaa intuu u soo saaray buu u qalay markiina dabka u saaro solay buu uga soo dhigay uu hor dhigay marka waa ka ilaahay qur-aanka inoogu sheegay fajaaa bicijlin xaniid fajaaa bicijlin samiin soomaha uu ka baqay intadiibuu u dhigayaa gacmahoogiina iyaku way laaban yihiin oo saasay gacmaha weli u laabteen oo maba u jeedaanba cuntada markaasuu naxay wuxuu ihi maxaad la cunin cuntada waxay idhaahdeen annaku bashar ma nihine malaa'ig baa nahay erga waxaan nahay rabbigaa uu soo diray adigana bishaaraan kuu bishaaraynaynaa qowmuluudna waxaan u sidnaa cadaaba waan halaagaynaa bay idhahdeen qowmuluud usrad wanaagsan oo ilaahay cilaaqo la leh ayay marti u noqdeen iyaa tihiin lama dhihine
neefkii ugu shishlaa xoolaha ugu fiicnaa buu qaado birta u mariyey markay iscadeeyeen ay yidhaahdeen malaa'ig baan nahayna uu naxay nebi ibraahim calayhi salaam xageed u socotaan buu ku yidhi markaasay yidhahdeen adigana bishaaraan kuu bishaaraynaynaa oo nebi baa kuu dhalanaya nebi isxaaq bay kuu dhalaysaa saara isxaaq gadaashiisana yacquub baa kuu dhalan doona wabasharnaahu bighulaamin caliim waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa wabasharnaahu biisxaaqa nabiyan min alsaalixiin markaasuu nebi ibraahim calayhi salaam 100 da'diisu kor bay u dhaaftay markaa ilmaha loo bishaaraynaayo saara oo la joogtayna oo xaaskiisa ahaydna iyaduna 90kay ku dhowdahay baa la yidhi ilaa labadoodu xilligaa ay soo wada gaadhaanna ma haystaan awlaad ilaa xilligaa waxayna ku soo barbaareen inay noqdaan bilaa ubad saara oo markaa adeegaysay oo hadalkana maqlaysay oo halka ayaku ay fadhiyaanna wax sidaas aanan ka fogayn ayaa tidhi qaalat yaa waylata aalidu ana cajuuzun wahada bacli shaykha ina hada la shay'un cujaab ina hada la shay'un cajiib qaaluu atacjabiina min amri illaah raxmatu llahi wabarakaatuhu calaykum ahla albeyt inahu xamiidun majiid waxay tidhi markaa maanuu gadahaasaa dhalaya bay tidhi markaas maanuu da'daas oo ilaa xilligaa bilaa ubad ahaayoo layguba yaqaana islaan aanan dhalaynin odagaygana waa kanoo waa duq gaboobe madaadanaan ilmo ku helaynaa malaa'igtii baa u jawaabtoo ku tidhi ma amarka ilaahay baad la yaaban tihiin baa lagu yidhi ma amarka ilaahay baad la yaaban tihiin marka horena ubadka ilaahay bay niga hayay haddana ayayni siiyey allah bayni siiyey laana amar ilaahay baa socda marka hore ilaa gadaha aad soo gaadhaan inaad bilaa ubad bilaa ilmo noqotaan ilaahay baa qadaray da'daas inkoo soo gaadha inaad ilmo aad heshaanna ilaahay baa go'aamiyey dee ma amarka ilaahay baad la yaabteen baa lagu yidhi raxmatullaahi calaykum wabarakaatuhu ahla albeyt innahu xamiidun majiid markaasay malaa'igtu weliba u bishaareeyeen naxariis iyo barako inay reerkan dushooda ay saaran tahay ibraahim calayhi salaam sifada labaad ee maqaamka uu ku gaadhay inuu noqdo khaliilka ilaahay waxaa ka mid a wuxuu yidhi weligay cunto ma cunin haddaan cunto cunana waxaan la cuntay jiray buu yidhi martidaan raadsan jiray buu yidhi inankuna maanta martida waan ka naxaynaa dadkii war wanaagsanaana martida way ku farxayeen marti soor bay lahaayeen inanka dhaqankeennii hore ee soo jireenka ahaa meelaha qaarkoodna dhaqankaasi weli waaba ku hadhaye waxaa jiri jiray in dadku ay u qoondeeyaan masaariif dhan oo martida loogu talagalo idna martidii maanta way nagu yaraatay martidii maxay nagu yareeyey mataqaanaa martidii markay nagu yaraatayna barakaadkii bay nagu yaraatay laanna marti aqalka ay soo gasha baa la yidhi arsaaqadeediina way la soo gashaa dadkay u soo galeenna waa loogu dembi dhaafaa baa la yidhi galidday u soo galeen baa ilaahay reerka ugu dembi dhaafaya risqoogina way la soo galeen laba shay baa inoo batay zamankan aad u batay labadaasi waxay la dagaalamayaan ma taqaanaan axaadiidka nebiga ku camalfalkiisa man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfahu baa nebigu yihi qofka ilaahay jecel qofka ilaahay rumaysan aakhira inay jirtana rumaysan buu nebigu leeyahay qofkaasi martidiisa ha maamuuso ha karaameeyo labada xadiiska lagula dagaalamay maanta waa labadee ma taqaanaa waa maqaaxiyaha iyo hoteelada weeyaan labadaa markay noo bateen ayaa dadka waxaa ka baxay sifadii martida la jeclaanayey ee martisoornimada aan dhaqanka u lahayn ee martida lagu xisaabtamayey martida lagu talagelayey ayaa maanta mujtamacii nolosheenni ka baxday waddan afriqiya alwusta u dhow oo la yidhaha jad ayaan beri safar dacwadeed u tegnay annagoo jamaaca aqalada markaan bouqanayna dadka ziyaaranayno irid baa la garaaci albaabka fadal baa lagu odhan fadal suudaanna waa la mid marka ninka ila socda ee waddankaa u dhashay ee dadka ii geynayey ee daliilka la yidhaahdo horuu ka galaa anu waan istaagaa markaa waan xishoodaa maxaa dhaa warma bilow dumar iyo ubad iyo markaasuu udkhul yaa xusheekh udkhul waan soo galaa markaan galo kuraasi baa taalla fadhi fiican baa yaalla qof baa gudaha ka soo bixi albaab kaluu ka soo gali shaah buu noo keeni biyo qabow buu keeni khudrad buu keeni buskud buu keeni timir buu keeni
reerka iska ladanna waxayba ku keenayaan casiir tabiici oo la soo ridqay ku keenayaan inta marka la noo keeneen cabneen fadhiisano ayaa uu oranayaa ki yara maxaad doonaysan oo u socotaan ii sheeg markaasaan ku idhaahdaa marka nahnu jina li ziyarati ahl albayt ammak walidak akhuuk markaas maraq fulan maraq min albayt maraq markaasaan ku idhaahdaa nahnu nusammi maraq ma kharaja min al-lahm قال وأيضا هذا خرج من البيت مرقاس أقول هذا مرق فلان فين مرق ميم راء قاف مرقاس أقول مرق أنا أقول حاولنا قانا دول كيغاس ما خرج من اللحم فوق هيلبك كبحة كان قريب كبحة بيودي مرقاس أقول محا وقتك نوغا دي ليسي وانت أو دقيقة نوفريسي waxay ku leeyihiin curfi wadankan waxa jira odaygu reerka markuu masaariifta u dhiibayo intii martidan ugu daraa bishaas oo dhan islaantu waxay ku alla baryaysaa odayguba ilaahay aqalka inuu marti soo galiyo masaariifta reerka ayaga waxa kamid ah marti soorkii martida qolka waxa loo dhisay martida toiletkii buu leeyahay xataa saddex habeen hadaad rabto inaad iska jiifato waad jiifan cuntadana waa lagu soo qaadi ayaa tahay lagu oran maayo halka inagana maanta inaga marayso haday adeeradeen miigay nooga yimaadaan ama hawdka hotelka u tilmaami kay noogu fiican waa kee hotelka jiifo ana lacagta bixinaya ya akhi barakaadkii baa nolosheena ka baxay maanta ku dhaqankii ahadiista nabigeena lagu dhaqmaayo inaga dhax baxday maanta usrada wanaagsan waxa lagu yaqaanaa usradu diin bay ku dhaqantaa diin bay daneeyaan إبراهيم الخليل عليه السلام وحكو يري خصلة اللبادي وحانو ملين إني تحي واتامرتي صورك إلهي ما نكو أمان النبي إبراهيم القرآن كان لغو شيء خصلة صدحات وحو يري أنو ملين يو إن المقام كخليل إلهي إن النقض أنكم متهستي وحويان لبا الرمود لما سوق قد بونادان أمر والبوحان فيرياته إلهي راليه وكيان تقديم أمر الدين من أمر الضروريات من علم الولادان وأنا مر والبعض هرمرسا أمرك إلهي أورال لك كيان صلاة دي شقدا كل مي صلاة هرمري صلاة دي يدنت الريركا كل أنت صلاة هرمري صلاة وأمر إلهي عز وجل أمرك إلهي هل كأدو أدكتد أي بعدك أن إلهي كل أوجو marka usrad wanaagsan waxaan ku noqonaynaa marka hore waana nahana adoon ilaahay wanaagsan adoon ilaahay wanaagsan sideed ku noqonaysaa waa inaad ilaahay ku abuuray adigu aad macrifo dhaba u yeelataa macrifadana waa la bartay ogow macrifada waa la bartay ilaahay baro hadaad baran ma baryi karaysi hadaanad baranin ilaahay ma caabudi karaysi هذا إلهي برن مرة لقين كريسي برشدا وحول بكهريس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفوني يقول ابن عباس رضي الله عنهما برشدا إلهي وحول بيدا كهريس هذا إلهي براتو أياد عبودي كريم حد بينت إلهي أدقوا أد عبودي أيا إلهي أدقنا مارك تاني نولش أدوية تاخر كوتوسين لذلك الدين تين الإسلام ماشي كبل عبنتيه فرسو ومد وحو النبي كبل عبين وكدع دعيو من هو الله من هو المنعم ككون نعمي وكما ككو أبوري وكما كواحد ستكسي وكما داود عليه السلام يا رب سيكو شوريا بليشك يا رب ساكو شوريا ايشك نعمه دادي بايغا كوربدته markaas garashada aad garatay inay nicmadayda dushaada ay ku badatay taasa shukrigeeygi ba ilaahay ku yiri kuncin ni'amtiisa ilaahay hareeraha naga dhigay amnigi arzaaqadii caafimaadkii
من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها qofka waagu u baryo buu nabigu alayhi salaatu wasalaam isagiyo israddiisii reerkiisii oo nabad haysta jirkiisii oo caafimaad qabo meelna aynan xanuunaynin quutal yawm maalinka wuxuu cunayeen haysta buu nabigu yiri nicmadii adduunyada taalo dhan qofkaas ilaahay waa siiyay saddexdaas amniga ayaa haya allah baa haya hay'adda nabad sugidda lagu oran hay'adda nabad sugidda subxaan allah hay-adda caafimaadka adduunka hay-adda cunnada adduunka saddexdaasiba xadiiska nabiga ka horjeedaan diinteenna waxay naga dhaadhicisayna bartay amniga ilaahay mooyaane cid kale ma hayso caafimaadka alla mooyaane cid kale ma hayo arsaaqada alla mooyaane cid kale ma hayso saddexdaa qofka waagu ugu barya buu nabigu leeyahay la waa bariistay nicmadii adduunyada taalo dhan waxba kama maqna buu rasuulku alayhi salaatu wasalaam marka nicamta intay naga maqan ha eegina intaan haysan hoos aan u eegno hoos dadka wanaagsan waxa lagu yaqaanaa allah muncimkay qadariyaan mar walba nicmada ma qadariyaan muncimkay qadariyaan muncim qof bini aadan oo sidaada ah oo abaal maalin keliya kuu galay ayaad weligaa ka sheekeen oo diloobayn ilaahay jalla wa ala imsu inoo nicmeeyo abaal inoo galay aragii maqalkii caafimaadkii arsaaqadii awlaadii nabadii islaamnimadii oo wax walba ka sii weyn islaamnimada haddii keligeed lagu siiyan wax kaleba lagugu darin iyadaa kugu filanba shukrigeegaa baad ka baxaynba iyada nabiyullaahi muusa calayhi salaam baa ilaahu kelmadaa kugu baryaysii laa ilaaha illa allah dheba lagu yidhi rabbi addoommahaaga waa wanaagsan kelmadan way wada yidhaahdeen tu aniga ii gaaraysii markaasaa ilaahay yidhi yaa muusa 7 cer iyo 7 dhul iyo waxa ku jira makhluuq haddii kafad miisaanka laga saaro laa ilaaha illa allahna kafada kale laga saari lahaa laa ilaaha illa allah baa ka cuslaan lahayd baa lagu yidhi nuqadir islaamnimada waa inaan qadirno hoos u eegno dadku nicmada sad muuqatay maanta eegaan laakiin tabaadilka ma eegaan nicmada muuqata waa laga badsan karaa waa laynaga badsadayna nicmada muuqata quraanka ilaahay ku sheegay falaa tu'jibuka amwaaluhum walaa awlaaduhum waa gaalada ilaahay markuu ka warramayo wuxuu yidhi xoolahoogan tirada badan leen siinay iyo awlaadoodan cadcade dhinac walba aan ka dhignay ha eegin baa nabiga lagu yidhi إنما يريد الله ليعذبهم بها waxa aad arkay sida nicmada hareeraha aan ka dhignay uma nasiin baa ilaahay ilaa haddaan siinay waxaan u siinay baa ilaahay adduunka dusheedina ku cadaabnay xagga daahirka nolosha muuqaalkeega waa laga badsadaa laakiin raaxada lagama badsaday ogow raaxada qalbigu noloshan daahirka ku hagaagta kuma xidhno raaxada qalbigu waxay ku xidhan tahay xidhiidhka adiga rabbi inaga dhaxayo inay hagaaga waa dhaweyto social media-ga waxay soo dhigeen maqtac naag faransiisa oo da'deeda lagu qiyaasay 90 ajiib waxay tidhi yani hadal nin sheekhaana dhagaysiiyey nin naag fadhiyey oo sheekh ahaa uu lilmay lilmusiidaayey hadalkeygii markuu dhagaystay luqa carabiya lagaga turjumayaa waxay tidhi waxaan isku daynay inaan lacag samayno lacag waa samayna lacagtii waxaan ku dhisannay tidhi aqalba aqalku adduunyada ugu qiimo badnaayo ugu qurux badnaa baan ku dhisannay material alaabta aqalada dhex taalana aan ka dhignay alaabta ka qiimo badnayd ee ka qaalisnayd ayaan dhex dhignay tidhi laakiin noloshii usradda ishaysatay aqalada kuma noola bay tidhi mujtamac ishaysta oday islaam caruurtii iyo waxay dhaleen oo isku duuban
ما haystaan ma haysanay tiri alaabtii ugu qaalisanayn aqalada waan dhex dhiganay laakiin raaxadii qalbiga ma haysanay tiri daawadii adduunyada ugu qiimo badnayna waan samaysanay dhakhtaradii adduunyada ugu qaalisanaayay dhaqaatiirtii adduunyada ugu tayada fiicnayna waan la soo baxnay caafimaadna ma haynay tiri naartii jaxiima hadday adduunyada jirtana bay tiri annagaa ku dhex nooloo samaysan oo gacantan lacagta naarta ku samaysanay tiri falaa tucjibka amwaaluhum hadalkeegii aayadda qur-aanka bal isku eg wala maalin meel ku qayilaysa ayaan annagoo jamaacaan jawlad baan ku qaadnay asalaamu calaykum calaykum assalaam mid baa hanala hadlina waxna aamusay markaa waan dhegaystay haye sheekhow hanala hadlin waxba hanoo sheegin ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhayso annaga waxba nama siin buu yidhi hadalkaa ka warrama ayuu wax siiye reer galbeedku ilaahay wax siiye dadka cadcad waxba annaka ilaahay nama siin buu yidhi sheekh dadkaasaa wax la siiyey markaasaan ku yidhi ma waxaad raadinaysaa maxkamad markaa ilaahay aad soo saarto soo saar mahadda ilaahay buu rabaa inuu dacweeyo soo ma kuwii kalaa markaa ile dadku isku mid maaha iskuma jiraan inuuba khayrka u soo go'dee waraa waxay ku adu naga aamus annakana la hadla annakaa dhegaysanayna khayrkee markaasaa yuuti alxikmata man yashaa waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira jamacaadku markaad socoteed ummadda dhex socoto waxaad noqonaysaa tabiib mise ninka dhakhtarka qof walba meesha xanuunisuu yaqaanaa daawada ku munaasabkana uu qoraa ilaahay wuxuuna soo dhex mariyey hadal kuwii kale iska daayay isagii uu ku dawoobay waxaa looga bilaabay nicamta ilaahay bini aadankan jidhkooga uu ku abuuray wa fii anfusikum afalaa tubsiruun aad baa markaa loogu xeel dheeraaday araggii yaa nasiy allah maqalka yaa nasiy allah halaadkan ilaahay kugu rakeeyo balaag ishan oo keliya haddii lagaa yidhahda waxa waddankan lacagtaaloo dhan baa keligaa lagu siinaya ilah lagaa saaro ma yeli labada indhoodna waxa adduunka yalloo dhan maqalkii kadalika ishu halka maqalku uu gala ma gali karta iyadu sanku booska uu gala maqalku ma gali karo cunto keliya qofku cunayaa ka soo qaad halkaa baa la dhigo cuntadii ishaa marka u horreysaba eegaysa ishu maxay sheegaysaa haddii cuntadaa diqsi dul socda ka warramo diqsi dul yaallo ama barambara dul fadhido ishaa sheegaysa gacantu ma sheegayso ishaa sheegayso waxaa ka qaada dee waa maxay cuntada naga qaada ayib cuntadii markii u aragtay ishii way fiican tahay gacantuu geliye ka soo qaad gacantu waxay sheegaysaa cuntadani ma kulayl baa mise waa dirrimaad mise waa qabow gacantaa sheegaysa haddii cuntadani afka ay gubi lahayd gubayso gacantaa markiiba sheegaysa wuxuu leeyahy qofku waa kulayl cuntadu yar qaboojiya cuntadii waa normaal kulaylna maaha qabowna maaha waa meel dhaxaad gacantii way soo qaaday halkaa marka cuntadu ay marayso yaa sheegaya haddana sanku wuxuu sheegayaa cuntadani urti buu sheegayaa may udgoon tahay mise way bedelantay oo carfigaygii way ka tegay meesha hadday uraysa ka warran afka loo dhiibayaa marka afka waxaa qaadanaya shaqadiisii carabku wuxuu dhadhaminayaa ma qaraar baa ma macaan baa ma dhanaan baa bal xubin kastoo jidhka bini aadamka qiimahay leedahay eeg yaa ku siiyey gudaha halkaa cuntadu markay gaadha haddana warshad kale halkan ku rakiban oo ilaahay uu ku rakibay oo waxaad halkaa marisoo dhan kala saaraysa waxaa cajiiba magnad baa ilaahay carabkeena uu ka dhigay magnad waxbuu qabtaa tin hal tin oo timo ah ma gaadha lagu leeyahay caloosha bini aadamka carabkaa soo tuura markiiba carabkaa waxa uu sheegayaa biyo intee lag ba carabka ku jira jamaaca bari waxay arkeen nin caagad 5 litir la yuusitaa markuu yarka joogaba uu ka badaa markuu yar joogaba uu ka badaa 5 litir waa la weydiiyey maxaa ku helay say wuxuu jiraan wuxuu carabka ay qalalay buu yidhi carabkaygii maadadii biyaha samaynaysay male buu yidhi
haddaan 5 litir ee biyahan gacanta ku sidani waayo guriga engegay oo dhimanaya buu yidhi inagu nicmada ma qadarin maalina nicmada maqalka ayaa yaqaana qofka maqalku ka maqan yahay baa yaqaana nicmada aragga ayaa yaqaana qofka araggu ka maqan yahay baa yaqaana nicmada hadalka ayaa yaqaana qofka hadalku ka maqan yahay baa yaqaana nicmada hurdada ayaa yaqaana qofka habeenkii aanan jiifan baa yaqaana nicmada ubadka ayaa yaqaana ninka bila ubadka yaqaana من يقدر هذه النعمة لأن أسلوب عين كاسا مركا رجي مجلس كجات كقيلة لقولها الله يو نكي وانو فرصة نكي مدح وصدا والروحة بركان هذا الكود ده مينين سكيت تجني أيوة إن قد الله الله شيخو هذا الكهدر عنكو هالله شيطان بايجا كينا يسود دعاء يقولي شيطان بقى نحن ما خير بكجرة فتردي إيمانك قلبك سكجرته أركم معصية كل عقفكم مؤمنكم مركز موقع على يا لماذا؟ لأن فترة إسلام ماذا قلبي سكجرته قفكم مركز الله ما قصته سيدي إنكي مالك بن دينار الله ونحرسته أبو عبد الله أيا أركنين مسلمة أو الصخرانة وخمر انتو عبي لأن هلكا دريرك خمر ودن عيدا كدا هذا نيو صخرة دي سينا وحي الله قشينو يرادو الله 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 أبو شفيع عمامة دي سينتو صوق هذي أيو تجيو مركا درير كيبو كبية مركا وحول مقعي اسم الجلالة مقعي إلهي أفكر وكسو بحايو درير كان إيا خمردا إيا قرن كان كسو عدا ما تكبي إيسدا markaasuu gacantiisii cimaamadiisii tuula tagay ayuu ka biyay baa leeyahay dadna markaasuu ninkii leeyahay sakhraan baan ahay sheekh iska kayda sakhraan baan ahay iga tag markaabuu sheekhu ku yiri laa bas markuu ka masaxay yuu iskaga tagay gurigiisu qabto sheekhi habeenka uu jiifsaday saqdii dhexe markuu isagoo jiifa ayaa manaam waxa lagu yiri haatif Allah hadlay haatifku waa dhawaaq oraah cidda lana aan la arkayn ba haatif la yiraahdaa wuxuu yiri waxa lagu yiri sidaad adiguna dhareerka afkiisa aad uga masaxday adoo xurmeynaya magaca Ilaahay afka ka soo baxaya ayaa qalbigiisina khamriga looga biyo loo dambi dhaafay baa leeyahay صالح من الصلحاء ونقضي نكي markii dambe صالح بشر بن الحارث الحافي رحمة الله عليه أقل كيسا waxa lagu ciyaari jiray habeenkii الرخص dumarka iyo rag inta isku yimaadaan ay heelada iyo saddex ikhtilaad baa ka dhici jiray saddex yaac nin malqabeen abu haayo xor ah oo xataa adooma far badan la bariga adooma jiri jiray dadna markaa buu iridaysa soo taagay nin gad leh oo duub haybadii islaamku ay ka muuqato bawaabkii albaabka u joogay buu ku yiri ninka gurigan lama xor baa mise waa adoon sagina markaa qasriga xagga saru jooga halkaa buu markaa ka fiirsanaya markaasuu ku ninka gurigan leh ma xor baa mise waa adoon markaasuu ku may waa nin xor ah eriga adduunka waxa jiri adoomo iyo dad xor oo axraara meelaha qaarkoodna imika adoomuhu way jiraan moogta wadanada Niger iyo Cameroon iyo Afrikada iyo dad wali adoomo oo la adoonsada jira Cameroon bari annagoo ku baxsan magaalada Ngun ay yiraahdaan Ngun ayaa la nagu yiri masaajidka boqor baa imanaya maanta boqor ay marka waad salaamaysiin marka la salaamayo la nagu yiri kabaha la saaraa waana la gurgurtaa waa ka dhageysanay marka horta yimaado masaajidkii markaa ku tukanay salaadii jimce ninkii waxa la keenay fardo lagu ilaalinayo fardo lay qaar lugeynayaan qaar farda wataan isagana baabuur marshandiisa lagu wadaa oo la keenay salaadii markii laga baxayna meel geed hoosteeda la fadhiisiyaayo dadka way soo gurgurtaan anagu waxna ma gurguurane aayartoon iska lugeyna waan salaamu calaykum saasan u salaamay hadiyadna waan siinay markaa imaamad iyo cadar iyo waxbaan siinay waxaan xasuustaa markaa ninkaas la noo sheego lagu yiri 4 iyo 6 dumar uu leeyahay
hayaa oo lixdan kalku keen afarta la garay markaas la yiri wama malakat aymaanukum ba wadanka ka shaqeyso oo qaryadan miigeega oo dhan dadka ku nool oo dhan waa adoomo yihiin adoomihiisi weeyaan afarta marka sharcigu u ogolaayay marka waxaan ka wadaa macnaha adduunka hatta al'aan dul bay adoomo jiraan hada Mauritania wala sheegay marka barigaas adoomo iyo dad xor ajirayay marka ninkii Bashar al-Hafi waxa uu yimid marka ninkan ayaa Ilaahay u soo diray iridii aqalkiisu istaagay deedna bawaabkii albaabka u taagnaa buu ku leeyahay ninkan ma xor ba mise waa adoon markaasuu ku ma waa xor shaqaba adoomo leh markaasuu madaxa sida u ruuxay bas waa fahmay buu illa waxa aqalkiisa rakhaska daanska loogu ciyaarayo waa nin xor ah sagiba markaa dusha ka fiirsanayay hadalka uu lahaa ma maqlay laakiin Ilaahay baa qalbigiisa jilciyay uu soo daadagay ninkii waashmaankii albaabka u joogay buu u yimiday aaway buu markaa ma aragtaan ninkii kula hadlayay uu dhaqaaqo xagga buu qabtay muxuu ka yiri wuxuu igu yiri ninkan ma xor ba mise waa adoon maxaad ku tiri waxaan ku yiri ninka aqalkan iska la waa nin xor ah muxuu kuugu jawaabay wuxuu igu jawaabay waa sababta aqalkiisa rag iyo dumarku ay ugu ciyaarayaan hadalkiiba markaa ninkii qub ku yiri qalbigiisa wuxuu yiri bal lastu hurran ana abdun buu yiri mayhibu xor mayhanu bal adoon ilaahay baan ahay buu yiri u ka daba dhaqaaq halkuu maray halkaabuu maro halkaabuu ka wacday u ka daba tagay raadkiisii buu goray waxa la yiraahdaa cagaagu gurigiisa kaga soo baxay kuma noqon ninkaas دخل المسجد فتاب توبة نصوحا وجلس في حلقات العلم وأصبح عالما زاهدا ربانيا يقتدى به إلى يوم القيامة بشر الحافي بشر كي عقاقنا باللوغو مقعدري عقاق بقوري سكاكا صباحي مساجد كو صوغلي توبة كاني توبة نصوحة علماء الله فريستو علمك كبرتي عالم زاهدة وإله علاقة له وإلى يوم القيامة علماء أي تقانو كتبتك قرآن مقعيسو أي إلهينك كدقي وكلمة ذاك ليكو إصلاح لك قولي نسكلم حربة نسوى الضون إنك عندما أنت مجتمع عنا إيقا مصيدة حربتين اللي يريبان أنه الله هاي mise waxaan u noolaa sidii dad la yiri adoomo Ilaahay baa tiin cabsooda ya كثير من الناس ما انت waxay u nool yihiin si wax la yiri xorbaatin waxa doontiin ba ku hadla waxa doontiin ba eega waxa doontiin ba cuna waxa doontiin sameeya waxa doontiin daawada saa doontiin dharka u xidha saa doontiin timaha u jarta muslim hadaa tahay muslim macnaheega ma fahmine مسلم معناه waxay ka dhigan tahay المستسلم لأمر الله عز وجل وكي أمرك إلهي اسكو ديبه bay ka dhigan tahay muslim kii hoggaansamay magaca ha ka rusheegno markaa qof wanaagsan noqo qofka wanaagsan dad wanaagsan buu adduunyada ku beeraa qof xun dad xun buu adduunyada ku beeraa qaybtee tahay marka adigu صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وناقوغ النبي محمد باك شقي عليه الصلاة والسلام إياك ونوحي يدوك كبهرين مجتمع وناكسن وف وناكسن با السمين يوسترد وناكسن قبر صالح هذا سلف هذه الأمة كمدة أيها ننك يديوك الله يبكو يساو سيكتي وإلا هذا الشيء حقادك سعطاء وحروان ونوك الله يا كسب بان نور هذين مركا بيكوتر اتق الله فينا أنا يدى الشيء ده إلهي ناقبق بيكوتري قاجد أدوية ده أنا ومتكيك وانو أتكيسن كرينا لكن عذابك آخر هو أتكيسن كريمين لغمد حاران أقل كيغس وقلن بيكوتري يا الكيغا يا أنيغا إلهي ناقبق بسوء أما ندى دي بنا
أنا ilmahaygu gaajada ifka waan u adkeysan karnaa laakiin cadaabka aakhiro u adkeysan kari mayno luqmad xaaraan aqalka naga soo gelin bay ku tiri innakana zamankeennan waxay Soomaalidu ay maraysaa waxa ku cunin ba wala cunay keen iyo gaajada u baxaraan xaaraan gaajoon baxaraan wax xaraan ma gaajoon baxaraan dadkaasina waxay marayeen inay yiraahdaan ilaahay ka baq dhashan iyo aniga amaana ku nahay ilaahay baa noo ka dhibtay uu nagu ka eeganaya ilaahay gaajada ifka waan u adkeysan karaynaa laakiin cadaabka aakhiro u adkeysan karamayna luqmad xaaraana aqalka naga soo dhexgelin تعلق انتي إله إلا لها يدتكاس عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبلها مركو كور رميي علي بن أبي طالب وها قبلها مركو كور رميي وحده قبله وصدح مؤمنات قبر مؤمنات مسلمات هو جانسن وإلهي هو جانسن عفيفة أو دورسون هينة دبع سن لينة وآذ لبرنا يسوح والبا قبل هينة مطيعة ونكيغ أضيع عيسى لينة ودبع سن زمن أذك مركو نكيغ لسو درسنا نكيغ أكال ما يسابوني أكو هذا حالة أذك ما أنت لسو درستي وانكبحينا إن شاء الله وانكبحينا أتكيسو ودبر أذك وحيرو ديبتي ويريرين isaga qalbiga iyo niyadda u dhisi waxay leedahay war waa adduunyo waxaan inay adduunyadu ku qaadane meeshaan u socono waa aakhire imtixaanka adduunyadu u dhamaadaaye sabir bay leedahay ninkeeda mid waa taabu mid labaad waa weel buu waa weel xaqana wax ka cuni xaqana way kaaga dhali buu xaqana waxbaad ka siin calooshana ilmay kuugu qaalideedna ubadka bay korin buu wax tar kala ma la buu midna wuxuu waa qillun qumal waxa ka dhigan tahay barigii hore maxaabista jeel lagu xidhay ma jireen ninka xabsi marka ninka barigan xabsiya jira bariga ninka la soo xidhay baa la yiri afarta adin baa laga xidhayay geed baa la hoos dhigayay timaha ku bixi jiray injirta marka jirkiisa ku dhalan jirtay way dareeri jirtay marka gacan uu injirtaas kaga qabto iska dila ma haysto maanta oo dhan isagoo bay cunay injirtaasi halka bay ka cuni wuxuu dumarka qaar wuxuu waa qillun ghumal wa injirta ninka maxbuuska dul fadhido gacan uu iskaga qabtana uu lahayn ayay ninkeyga ku noqotaa buu ki ilaahay adduunka cadaab uu la doono ilaahay qoorta u sudaa buu waa naag iga tag ka tagi mayso waxaan ay qaba ku qaban mayso na ubadka kori ma korinayso na aqalka fadhi ma fadhiyayso na ilaahay ka baqi mayso na sidan iska dayni mayso na iga tagi maayo na nabad ku joogi mayso مثال كاسو كبحي علي بن ابي طالب دمر ولا قبلها ان شاء الله وكو وناكسن ان شاء الله هذا لو ان لا دغيسنيان iyaguna khayrka moogta takoobaad baad markaa noqonaysaa mu'minad ilaahay ku xidhan muslimad hoggaansan oo sharciga ku dhaqmaysa oo gurigeeda aan ka baxayn oo wixii ninkeeda ilaahay u soo dhiib halka bismillah ku leh afiifad dawrson oo xataa baahida ay qabta ninkeeda ka qarsanaysa laaha inaad dadka kala maaha waxa la doonaad wax ka qarsato macal ninkaaga ku qabaa la doonaya baahidaada inaad ka qarsan karto ina haddaad ka qarsan kartid ninkaaga baahidaada ka qarso baahidaada ilaahay u sheego hayyinatun wa gabadh dabacsan layyinatun oo jilicsan zamanka adag markuu ninkeyga la soo darsana ninkeyga garab u noqotaa waad ka baxayna ilaahay baan haysanaa hawalwalin xadiid kale waa kii nebigu lahaa allah u naxariista buu nebigu yiri ninka habeen salaata leelka u kacay xaaskiisiina kiciyey hadday iska diidana biyo yar ku shaydhiyey gabadha muuminadda ee iyadana habeenka salaata leelka u kacday ee ninkeediina kicisay
هدو ديدنا بيير كل شيء لسينا تانا اللهم حريص أبو رسولك يدي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما هالدعاء سبقت همود إني سعت همود وفكستو حديث النبي كل رقم دعاء سوى كل عيسى لذلك مجتمع وناكسن الله ينقدر آمين هذا وف وناكسن أسرد وناكسن مجتمع وناكسن سنكون نغني سامركا والله قشقيا والله دياريا والله دسا مجتمع وناكسن إما قدرت كل زمان كانوا حيا قانا سيدا الله دسا وضوينك سيدا دكتورة الله دسو سيدا بلدنا الله دسو سيدا ورشدها الله دسو سيدا حولها الله دقو سيدا دولك الله قصو صاروا خيراتك كجرا لكن بني آدم قصة الله دسا ما يقانا لذلك وفرسوا ودا والبا مدحضو مركي دورشة أي قليان waxay doorashada ku galaan ereyo ma taqaan isticmaalaan dalkan dhisayna horumar maxaa ka qabanaya dalka wadooyin baan nii samayn maxaa ka qaban wadanka oo dhan baan nadiifin maxaad ka qaban tacliintan kor u qaadi maxaad ka qaban dhaqtaradan bilaash ka dhigi maxaad ka qaban shaqo abuur baan samayn maxaad ka qaban faqriga saboolnimadan la dagaalami nin madaxa oo fagaaraha isla soo taagay ma maqasheen dadku sidee ku hagaagi lahayn ma ka shaqayn ma maqashana سمعت مجرى لا مسلم ولا غير مسلم دات كان هجاجين مجتمعنا لقيت دورنا يا مجتمع بنتو أي كوبا أنت هيويان مجتمعنا كود داليا سيدي الرشاق يالو نقول لها هايين المدح وصل على ولي ما بقشين لماذا محيور واين لنا فرسمدا ما هيان يكو وفني عجيبة فنيغا وحا اسكله الأنبياء عليهم السلام ثم أتباع الأنبياء باسكله ددك حاجة جنتيدا ددك إن الإصلاحيو وفنيغي النبيدو أي لهايين عدك لفنيغا ماله النبي يدو فرسو نبي بأدونك إيمان ددك وضبان شيغيبو إيمان ددبو وحصو صاري دد رون شيغيالا ددك وضبالمين أبو نحيمان دد عدالة سمين أيو عدالة فلا يبو كسو نح صاري دد وضخوانو إيمان ددك خيانة بنا وكود دالي دد وضا أمانة لو كسو نح صاري دد وضا جهلية أو جهلو نحيمان ددك جهلية بنا بكود دالي dad wada culumu ka soo saari dad wada akhlaaq xub u dhex iman dad wada akhlaaq wanaagsan buu ka soo dhex saari dad been ku wada dhaqmaya buu dhex iman dad wada rusheegayaal buu ka dhigi maxaa beddelay marka dadku hagaajinaya shariicada iyo diinta nabiyadu ay la imanayaan ayaa dadku marka ku hagaagaan marka nabi baa la soo diray waxay ka dhigan tahay shaqadii dadku ay ku hagaagayeen ayaa nabiga ilaahay u soo dhiibay dadka in laga shaqeeyo ayaa awlaaya halka maanta aan leenahay wadalka ayaan hagaajinaynaa waxa ka awlaysan in la yiraahdo dadkan hagaajinaynaa alladina imma kannahum fil ardi maxay sameynayaan aqaamu salata wa aatu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatu al umur ummad ay isticmaar u dulaysanayay markan ka qaadnaba ilaahay isticmaarkii iyo dulligii iyo maaragtaanay dulmigii lagu hayay aan ka qaadnaba ilaahay yiri maxay qabanayaan oo horeysa laga rabaa inay qabtaan salaadii oogayaan ba ilaahay zakada ila iimaanay bixinayaan salaadu waa xaq ilaahay zakaduna waa maxay waa xuquuq al-ibaad weeyaano dadka wadanka ku nool aqniyadooda oo kaliya hadii zakada laga qaado masaakiintooda lagu celiyo qof baahan oo miskiin wadanka lagu arki maayo dadku wada aqniya wada maal qabay may noqonayaan waad faqriga lagula dagaalamaya waa maxay waa zakada munkarka waxa lagu zuuliyaa munkarka iyo faxshaaga waa salaada marka la oogo inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar waxa xun akhlaaqda xun iyo dhaqanka xun ee ilaahay bani aadamku ba aysan raali ka ahayn waxa lagu zuuliyaa waa salaada aqaamu salata
ummad haddii ilaahay isticmaalka uu ka qaado oo dhulka ilaahay uu dejiyo tamkiiniyo shaqada ugu horeysay qabanayaan baa ilaahay yidhi salaaday oogayaan oo salaadu maxay zuulinaysaa salaadu munkarka iyo faxshaagay zuulinaysaa waxa kale la imanayaan zakaday bixinayaan baa ilaahay yidhi zakadu maxay la dagaalamaysaa saboolnimada la dagaalamaysaa qof miskiin oo faqiir wadanka lagu arki maayo amaru bil ma'ruf fasaadka gaaladu ay wadaan ma soo galayo weeyaan macruufka ay fidinayaan ayaa ka moosay baa ilaahay yidhi munkarka caalamka socda anta munkarka gaaladu ay wadaan maan iska muslimuusa na soo galay ali sheega ya وإن سوقلي قال إنه ما يمن لكن اللي يردني أيه كدينا يعني قال بيكو دينا يعني لدبايد مالين دحلايا دل يرتي مقالة ده دفور كي وضع حيرتين وحاني وركون مقالة ده أنو الله ما يابا وحان الله يابي وياك وش يجي مي بان تجي واد دويت قيل جري وحان أركض دفور كحيرا قيل جري حقوق أركي بلايدا قعنتان كوسد النبو كاركي شركه يد بدنيا كي مغالا جوغي marka maxaad kala yaabi hadii kimiga joogo wadanka xirtay ida kana hada nurukum fakayfa dhalamukum buyi mid suudaniya ayaa mid kale suudaniya u yeeray ya nuur magaciisa nuur baa la yiraahdaa marka mid masriya ag fadhiyo wuxuu leeyahay nuur ninka magacan leh malaha warin adiga ba kaacab mid madow ba soo baxay markaas nuurkiinu makana buu dhaha kan haduu nuurkiinu yahay dalaabkiinu waa sidee mugdigiinu waa sidee waxa ka wada geel jireheeni haduu dhinaca xiirtay maxarre magaalka la yaabay maanta mujtamaci waa la beddelay maxaa lagu beddelay laana islaax kama shaqeynaysid كما شقيني سيد مارك تاني إنه مضى خير كجارو ما دام خير كي أديك اللي دوني إن أتكشقيسو أتكشقيني ويدي منكر كجالد يا منافقين تاي وضام بكو صقلي صالح بعذر كيساني صالحة أولي مسجد كسف قارو كتو كذا لكن ده شيء سو أيضا كان كيس أيضا كدو أن يكونوا ليهين ما دعدو وهل كمان توالدي أبي هوي ويأويان waxayna leeyihiin dhalinyaradii baa naga xumaatay noogu duceeyay bay leeyihiin dhalinyaradoodu inay u hagaagto way doonayaan laakiin labada waalid iyo kuwa isbedel keenaan ma doonayaan waxay rabaan labada waalid awlaadoodu inay u noqoto ka Muusa calayhi salaam wa Ciisa wa Muusa wa Haarun oo kale inay u noqdaan bay doonayaan laakiin labada waalid iyo ku inay Nabi Ibraahim iyo Nabi Maxamed u ekaadaan diyaar uma سيدي إسماعيل أبيه وضاعي يا أبا تفعل ما تؤمر نبي إبراهيم مركب برت الله ضل بحين كيس قور عبال لقولي سومهي ولا ضل بحين يا بني إني أرى في المنام وحنكم أنا معنوكم برينا يا محد أورن لهي قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أبا أمرك إلهي بوحي بوكيدي أبيه هو يدي وحيربتا إنه المهيج إسماعيل وكلا إنه النقضاء لكن لبدا والد إبراهيم وكلا إنه النقضاء الديار معه إسماعيل إبراهيم بعد الله إسماعيل هاجر تربية ديس يا تربية دي إسماعيل هاجر تربية ديس هاجرته واتي علة كل كلا كذا دقائق كده كتيري إبراهيم ومهالك ما نقدرتون نجيت كيسا ما أمر إلهي بها إلهي نمضى يعيا سجى نقول فلان صعوبة كتلي تابع إسماعيل ده الشيء الإسلام طريقة وريق يسوم مقاحيك شقين يسا أما جاد يبين يسا إسماعيل وكلا دل ميسي وقوم جاد يبين إسماعيل دلي ما دلي ده وصباح ده يجيبنا هي دلي إلا يدا بارت جاتك يدا يبين يسبي لدبا مالين يدي inankiisiibu ku yiri aabo hooyada iyo walaalaha dhammaan waxay leeyihiin been badan ninkani been badan ka dhanba ku wareerisay beenta iska daa markaas hayaa waayahay dibda ma baan u sheegay maayo
وكوير هو يدي ببيانو شيغا ولا لي ببيانو شيغا رير كدبا بين بكم سكول ما تغو مeel been odaygii baa markaa odayaal saaxiibadii u yimiday yara u arko wuxuu kullay odayaashan aabahay bay u socdaane aabana waa kii raba inuu sii seexday bal u yar markaasuu aabo odaygii hebel baa albaabka soo dhowey kullay aday ku socdaane maxaa uu hurdaa ku dhabiyo macallinka markaa waayo macallinka xaafadda waayo waa aabaha kii yaraa yidhi bal filimku dhigay aabahay riwaayadu sameynaya buu yidhi anigina been daabu ileeyahay isagana been buu ummadda kula dhaqmayaa buu yidhi mujtamaca noocaasa ka warrama mujtamac hagaagsan waxaan ku keeni karnaa adigu hagaag aabbuhu ha hagaago hooyadu ha hagaagto hadday labadaa hagaagaan bay culimmadu leeyihiin ilaahay caza wajalla waa qaadir in ubadka ku wada hagaajiyo hadduu mid xumaadana laa baas farahumay siman yihiin may inay boqolkiiba boqol ubadkaagu ku wada toosaan ha ku talagelin laanna sunnada ilaahay baa caalam ka socota sunnada ilaahay waa maxay inay ina fiicnaato ina ayna fiicnaan in dabeecad fiicnaato ina dabeecad liidato in dhaqaale hesho ina faqriya sabool ku noolaato in caafimaad qabto ina ay bukooto mid adiga kuu khidmeeyo midna adigu aad koriso haysidba 40 jir ilaa imika waxaa la helayaa dhulkeenna kule hooyada iyo aabahay xaq baa kule xaqayga iga siiya oo xaqaad ku leedahay muxuu yahay dee reer baan guursaday biilka ha lay siiyo war ma adaa biil lagu siin mise adaa biil dadka siin lahaa waa maskaxda dhallinyaradeena qaarkood ku fikiraysa maanta 40 jir baad arkaysaa 30 jir ilaa imika ka dhaadhacsan tahay hooyada iyo aabahay xaq baa kule xaqayga aniga hay siiyaan oo masaariif hay qoraan مجتمع وناكسن بالا ربا إنا سمينا سيكون سمينا وإنا دين كشغينا آيات القرآن كالا ربا إلا قد نغمو الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وآيات علماء أي هذا حتى الدولة الإسلام أو شريعة الإسلام كتطبق إيسا هذي دلتي تمادنا دينتي لغا شغيل لغا تغي مايو والله ولا شغل دينتي امر بالمعروف دعوه للدين ما يبي لين حتى الدوله الاسلاميه هذه تمام بنص هذه الايه كمجتمع وناكسن وانا كشغينا دين نبينا صلى الله عليه وسلم ضد نوعيب ونبي دحميدي ضدك الدنيا كنولو دن اي كعود بالاسلام بهين عربت حتى الدنيا انت كلا ولا غوميسنيي ياك لما غوميسنيي واي maxaa laga guumeysan dhulkoogu beera male wabiyaal male dawlada waaweyn maaha waa xoolo dhaqato geelay dhulkoogu saxraab u badan yahay qabaylna way isku cunaan dadka noocaasa maxaa laga guumeysanba furus iyo ruum inta kale adduunka guumeysanayeen jasiirat al-arab waaba la iska hayayba anagu soo qixina hanoo soo talaabina dad ma hena waa dugaag ba loo yaqaan in dugaag yihiin dadkii noocaas aha ayaa nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wassalaam ilaahay ka soo dhex saaray dadkaas 23 sano nabigu markuu dhex joogay dad nuuceeyay noqdeen bay kula tahay arhamu ummati bi ummati abubakar buu nabigu ummadayda ninka ugu naxariista badan waa abubakar ninka ummadayda amarka ilaahay ku kakane ku adag waa umar ummadayda ninka ugu xishoodka badan waa Usmaan ummadayda ninka cilmiga xagga xukuuridista ugu yaqaan waa Ali ummadayda haddii aaminu ku jiro nin aamina aaminka ummadayda waa Abu Ubayda buu rasuulku yiri Abu Muawiya buu nabigu waa ninka ummadayda ugu dulqaad badan dulqaad Abu Dar ma adallat al-khadra wala aqallat al-ghabara samaduna ma haraynin dhulkuna ma qaadin nin Abu Dar ka rusheeg badan buu rasuulku yiri waaniga noloshii nabi maxamed uu ka dhaxlay badili waayay si kasta adiyo u timaado zamankii Muawiya noloshii inuu bedelo iska diiday zamankii Usmaan علم الحلال وعلم الحرام ninka ummadda ugu aqoon badnaa cilm al-halal wal haram wa Mu'adh bin Jabal buu rasuulku geesinimo Barra bin Malik buu nabigu sheegay Khalid bin Walid geesi
deeqsi nimo Cabdiraxmaan bin Awf 500 euro u soo gasho badeecadii ay saaran tahay ayaa ganacsadii reer Madiina naga iibi kan inta igu siibu leeyahay Cabdiraxmaan wuxuu dhahdaa may inta ay ka badan ma ku haysta ku kala yimido inta ku qaado inta ay ka badan ma ku haysta ku kala yimido inta ku qaado inta ay ka badan ma ku haysta waa inta in ka badan ku heli meesha baa laga yiri waa ku heli buudi waan haysta mid iga qaadanay waa kuma waa Allah fuqarada masaakiinta Madiina kuna loo qaybiye buudi 500 euro عفاف ضاد عفاف مباهتنا فضال بن عبيد ربيعة بن كعب ايكو غيرو كليه ستا او صدح مال مدعوته aanan cunin oo jidka gaajo ula dhacayaan ayay dadka u sheegeen baahidooda oran jireen marka dadka hor joogaana way dhoola cadeynayeen marka Ilaahay hor joogaana way ooy jireen baahima ba sheeganayaan ba علم الحديث لكن ugu weelaynta badna umada nabiga Abu Hurayra ayuha afka nabi Maxamed wax kama soo bixin illa qalbigiisu ku xafiday markiiba dadka noocaas yaa soo saaray kula tahay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam dadka adduunyada ugu khiyaanada badnaa waxay noqdeen dadka adduunyada ugu amaanada fiican dadka adduunyada ugu dulmiga badnaa waxay noqdeen dadka adduunyada ugu naxariista badan dadka adduunyada ugu been badnaa waxay noqdeen dadka adduunyada ugu rusheega badan dadka adduunyada ugu gaalnimada xumaa dadka ugu diin fiican bay noqdeen dadka ugu akhlaaqda xumaa dadka ugu akhlaaq wanaagsan bay noqdeen dadka adduunyada ugu faqiirsana dadka adduunyada ugu qanisan bay noqdeen dadka adduunka ugu jahlisana maxay noqdeen dadka adduunka ugu cilmi badan ilaana nabiga ka shaqeeyay sallallahu alayhi wasallam marka haddaan doonayno in dadku inoo hagaagaan inuu dalku inoo hagaago haddaan doonayno waa in dadku waxay ku hagaagi lahayn aan ka shaqeynaa dadku maxay ku hagaagaan dadka laba shay bay ku hagaagaan bay culimadu leeyihiin waa dacwad dadka in xagga Ilaahay loogu yeedho masaajida loogu yeedho aakhirada loo jeediyo Ilaahay caadamadiisa laga dhaadhiciyo iyo in qofka bini aadamka diinta la baro ad-da'watu wal 'ilm bay culimadu leeyihiin haddaan doono diintu inay fidana dacwada u sababa haddaan doono diintu inay dadkeena baaqi ay ku sii noqotana waa in umada cilmi sharciga waa in la baraa labadaan ama kala maarmaan dacwaduna cilmiga kama maaranto cilmiguna dacwada kama maarmo insha Allah dhahda yaa diyaar inuu labada ka shaqeeyo inuu dacwada u baxo uruushka baxa waa islaaxi halkan halka islaax Ilaahay baad u dhawaan dad badan oo lunsanna Ilaahay sababtaadu ku soo hadayn dad badan الدال على الخير كفاعله dad badan oo islaadahay way fog yihiin ayaa marka jamaacadu u tagaan Ilaahay toobada waafajiya insha Allah ayaa u diyaar marka inuu waqtigiisa diinta ku bixiyo 4 bilood 40 cisho 2 bilood intaad karaysaan insha Allah dhahada ya ويكون دعوة ويوضيان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون أسرد الدنبا مركي أسرد للسمعين أيو شغادة أقوه الرئيسيس كو كالميسان يان بأيلا هايري وين الدين تكا شغيان غير مركي لنسا أيو مقصودكم ماها هنا شهوة دودا قلتها كليا مقصودك الزواج كوينها فهمنا أسرد ونأكسن هدفك الله سمعيني وحويان وين وحتر أمضوا يشاء maxaad umada wax ugu taraysaa marka dadka wanaaga far xumaha dadka laga reebaya salaaday oogayaan zakaday la imanayaan wanaaga Ilaahay rasuulkiisa ay adeecayaan duulka sidaa yeela ayaa Ilaahay u naxariistaa baa Ilaahay quraanka ku yiri soo diyaar man insha Allah soo diyaariya abeen damana insha Allah markaska waa fikradiinka ka soo qayb gala dambigeena Allah dhaaf dambiga walidiinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawtaadkeena Allah u naxariisto isma haday kara Allah ina hadeeyo dad badan oo ehelada walaalaheena oo qaraabadana wada xanuunsan Allah shaafiyo qurbadana qof walba halkay ka haystaan Allah ka faydo dhalinyaradana wiilalay gabdhaha Allah inoo hadeeyo muslimiintana muwaafaqeen midnimada Allah siiyo amni iimaankeena Allah inoo adkeeyo